الحمد لله إلهي بان ku xamdinayna inaga soo qayb galiyay kulanka diineed inaan diinteena macaan isku baraarujino oo iswaanino oo isku nasteexayno waataan ilaahay ugu dhawaanayna kulligeen weeyaan hada salaadii maqrib markaan tukanay kulligan waxaa laynoo jeediyey wacdi dhammaystiran wacdigaasi muxuu ahaa waa janaasadii aan ku tukanay weeyaan kafaa bilmowti waacida qofka waana waxaa ugu filan waa geerida dad dhalinyar intaa la eg qaarkeyn ay xafadata kitaab illaahi ay yihiin qaar culamo ay nala joogaan qaar ducaada ay nala joogaanna janaasadaasi ilaahay waa waafajiyey inay ku tukadaan khayr badanna waan u rajaynaynaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid a janaasa la hormariyey markaabay saxaabadu janaasadii bay khayr ku ammaaneen markaabuu nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yihi way waajibtay markaasaa haddana janaaso kalea nabiga la hormariyey tiina shar baa lagu sheegay shar oo naf xun oo acmaal xun ka shaqaynaysa inay ahayd baa nabiga hortiisa lagu sheegay markaabuu nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi wajabat waa u waajibtay saxaabadu waxay yidhahdeen cumar bnu khadaab radia allahu canhu ayaa yidhi maa wajabat nebi allow maxaa waajibay bal noo sheeg janaasadii horena khayr baad ku sheegteen buu nebigu yidhi janna u waajibtay buu yidhi janaasadii dambena shar baad ku sheegteen oo ayadana naar baa u waajibtay ininkuna markhaatiyowgii ilaahay arlada dusheeda u joogay baa tihiin buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam marka dadkaas masaajidka soo camiray inay wacdiga iyo waanada iyo nasiixada iyo baraarujinta ay dhegaystaan u yimiday ayaa ilaahay waafajiyey janaasada inay haddana salaadeedii ay ku tukadaan waxaan u rajaynaynaa insha allah qofkaas inuu yahay ahlal khayr insha allah dhahada eheladeenna waxay naga dhinteena ilaahay waxaan uga baryanaa iyakana inuu qabuurahooga u nuuriyo uu cadaabalqabrigana ilaahay ka badbaadiyo innakana ilaahay khaatimada inoo hagaajiyo ilaahay casa wajalla cibaadadiisuu adduunyadan inoo keentay addoonkuna rabbigiisa laba unbuu ku caabudaa mid saddexaad ma leh laba shay haddii cibaadadeenna laga arko cibaadadaasi insha allah waxay noqonaysaa maqbuula al-ikhlaas cibaadada aada cibaadaysanaysid waa inay kaa noqotaa ilaahay dartii haddaad salaad tukan iyo haddaad soomi iyo haddaad qur-aan akhrisan iyo haddaad ummad wax u sheegi iyo haddaad diin baran iyo haddaad diin bari iyo haddaad dhaqaalahaaga diin ku bixin iyo haddii maaragtaan ummadaada aada waqtigaaga ku bixinba waa inay cibaadadu kaa ahaataa alla dartii wamaa umiruu ilaa liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiin ikhlaas camalka qabuulkiisu waxaa asaas u ah ikhlaas camalka labaad ee la doonaya acmaasheenna inaan ku qabanana waa maxay almutaabaca inaan ku qabano dariiqadii nabigeena calayhi salaatu wasalaam ikhlaasku waa laa ilaaha ila allah mutaabacaduna waxa weeyaan waa muxamadun rasuulullah ikhlaasku waxa weeyaan maaragtaanay waa towxiidkii waa laa ilaaha ila allah waa iimaankii mutaabacaduna waxa weeyaan waa cilmigii weeyaan ikhlaasku waa ka ruux weeyaan mutaabacada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam lagu dayanayana waa kal jasad weeyaan sida ruuxda iyo jasadku u kala maarmaynin ee mar walba labadaa iskugu baahan yihiin ayaa cibaadadeennuna labadaasa asaas u ah laba shayna waa hadaf weeyaan hadaf inuu addoonku mar walba labadaa u isordhigaa khawfan wa tamaca haddaad cibaadaysanaysid labadaa ilaahay waa inaad ku caabudaa cabsi iyo maaragtaane tamac rajo aada ilaahay naxariistiisa aada rajaynaysid muminiinta muttaqiinta ilaahay markuu ammaanayuu sifaadkooga ka sheekaynayay
وكي إلهي كو أماني لها هبينكي دينعوغو جيفك كمرة قبا إلهي يري يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون تتجافى جنوبهم عن المضاجع هبينكي هل كدتك كلا أي جيفان أيا إلهي أضومه سو هبينكي جيفك كمرة قاني إن ير إنتي سيحدان بي مركز دنبانا عبادة يطاعد يبريد الله أسوك عان عبادة أي عابد يان إلهينا وحا أساسؤه خوفا والطمعا إلهي بي كعب سنيان عردي سأي كعب سنيان طمعا إلهي ويكو عابد يانو نحريست إلهي جنة أي ككوتهي بالرجينيان ومما رزقناهم ينفقون با إلهي لوحا كو أرزقنا ويبحنيان مالكوغا هدي لغا دلبو دين تكو بحي ليلادنا ويكو بحنيان